إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. MP-ga musharaxa ee xildhibaanka 2022 wajiha South oo aan isdhihi karo waa xildhibaanka 2022 ee wajiha South ama koonfurta wajeer. Masha Allah waxaan la dhahaa Dr. Kahiye idinka ay ingoloosin maanta idinku ila joogaa wixii baahay waa sii dhawaysanaysiin waxaan rabnana waxaa weeye maanta hubka lagu dagaalamaya waa kura kwa Kahiye marka waxaan rabaa inaan markaa furo hal oday aan dhinaca ka soo dhaweeyo hal odayna aan dhinaca kale ka soo dhaweeyo kadibna aan khudbada siiyo asaga ma fahanteen abaqdheer waa maasantiin walaal sidaa noogu soo baxdeen si sharaf laa noogu soo baxdeen waan nii mahad celinaynaa waxaan ii sheegaynaa waxaan wadanaa nin musharaxe oo wajiha South MP ka taagan oo la dhahaa Maxamed Kahiye Buule ee ku magacdasta Kahiye waxaan ii sheegaynaa waa nin ogaadeen wato waa nin musharax oo ogaadeen maanta ka kooban yahay dadka maanta socdo ogaadeen buu ka kooban yahay qabiil aan ogaadeen ku jirin malaha maqaabal sadaf waa ogtihiin maanta kursiga dad badan oo musharaxa ku tartamaya laakiin nin ogaadeen maanta uu wato oo ogaadeennimo lagu wato waa Dr. Maxamed Kahiye Buule oo Dr. Kahiye lagu magacaabo waxaan rabnaa walaalayaalow waxaan codsanahaynaa kuuraha ree abaqdheer insha allahu hadduu soo gala inuu soo gelayaan filahaynaa maadaama uu ogaadeen wato oo sida hadda isfilayno inuu rajo aad u weyn buu leeyahay ilaahay aan nagu guuleeye walaalayaalow waxaan rabnaa kuurihiina inaadna siisaan oo annagana xisaab aad nagu darsatiin oo alla isagana aad la xisaabsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullah. aad iyo aad sida sharafta badan oo wanaagsan noogu soo dhaweysiin horta noogu soo dhaweysiin waad mahadsantihiin inigaa sharaf mudan walaalayaal ani hadal badan ma qabi ninkan Dr. Kahiye nin u taagan way ogaadeen nin jifa ama qabiil u taagan ma aha weligiina anaga waxaan u malaynaynaa qoyska Maxamed Suweer baa halkan degan Maxamed Suweerna iyo maqaawna xoogaa waa la isku xaman jira tolkana waa is wada garanayaan garaale hada ogo waxba yara qaldabe idinkoo raali ah waan ognahay qoyska halkan degan waana qoyska u soo soconay marka xoogalaanta dhibaatay keenta marka xareed sharaf badan aad mudantihiin waad mahadsantihiin hadalkayga ma badna ree abaqdheer ee reerka degan aad baan u garanaynaa marka soomaalida aad bay isu taqaanaa siiba ogaadeenka u is yaqaanaa walaalyaalow waa mahadsantihiin in badan waxaa intaas noo dheer inta uu maxamuud garuuley uu sheegay ninkaa musharaxa oo Dr. Kahiye la yidhaahdaan wadanaa waxaan rabnaa ree abaqdheere inaad noogu seeqdaan inta yar oo naga harsan kulley dadka dhalinyaro hadda u badan yahay odayaasha joogi jireen markii ogaadeenka oo waqtiga siyaasadda la gaaray MB-nimada lama arki jirin nin MB ahoo ogaadeen uu wato qaalib ma ahan jirin qolo unbaa maarta unbaa qoys unbaa nin walba maarta ninkaa waa reehebel baa la dhihi jiray waxaan idiin sheegaynaa hadda ninkan siduu ninka hore uu sheegay ogaadeen baa wata kulley sabab baa keentay sababta keenta waxaa waaye wax uu asaga la imaado wax uu maaragtay ma aha aqoon loo leeyahay waaye inuu nin ogaadeen anfici kara u yahay sababtaasay ogaadeen ku raaceen wax lacag uu ku gatay ma aha wax ujeeddo kale laga leeyahay ma aha soomaalida waxay ku maamaadaa ama ugubgada ama aqoon marka ogaadeenkii aan dariska ahayn oon isnaqaanay ayaan waxba ka maqnayn sidaas aawadeed
abaqdheere waa magaalo ogaadeen uu degan yahay waxaan ka codsanaynaa sida ogaadeenkii hore ay nagu soo qaateen oo dhabtakaahi ay u wataan insha allahu tacaala inay iyagana qaybtooda ku darsadaan ay kuurahana na siiyaan assalaamu calaykum waraxmatullah وسلامتين وفدي شرفت الله سعودي رابق دير ساد موجود صباحدين أبدأ وصل دويسة ورطاكم عشانتين سلام بعد جد إن وحرام لين ركتها ما أنت سو استاج ما أنت كهرو ما سو استاج ما ملين هاي إنه ما أنت نين إمبي دونا إنك يهري إنه أسرع هاي من ملين هاي لكن إن سد العناوة سبب ولا يهالي ماشي أنا بقدر له إنك هذا وحنا كسر عم بقدر نمل لها بقوري ماشي نحن بقدر صوت المنسن إني وعمل قلبك أنا وكنت لي وعمل أنكو سو جيدين إني وقت وعريد إنه بقى هي وجار وحقان نقفل إنه ونادبا كسر بحني أيام بناكل نسموه وعمل أنكو سو هيرين إني بقدر يعني وعمل وحي إهداد موجودر مدي هذا كلا إن وحنيدين شيء جدك ماشي تكلم نين كان دكتور كاهيا لده أنا ونين جري وأنا هاي بقوري بكسر راعي إن سببها وصل راعينا حقا كل كان في ردتك إمبيجا إيه ما أنت صعدة نين كان كسر حشون نقضي وأنين أن صار راعي أنا بلجره هذا إمتى قانين أنا هنا أبرتك أحيانا أبرت كورها النسي إن شاء الله بإذن الله الباري هذه إلهي هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أوديجا يا وقدر أدر سودو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نجا ما أنت لو إما ذي بقدره إن شاء الله تعالى وقت فتعالى ما ينادي إلهي سوكري آمين إلهي بسوكري كان إلهي سوكري إلهي سوكري مرجع يسار داي سيدا أم مري ليسين الحمد لله تعالى وما ذكر أو هذا يعني بيجي إلهي ذي كيسان تاي وما مثلا أقعدين كل يرا أنا قاعدين بنيجي نجري عن هذا ما بنلاقي نهاية لكن أقعدين ما هذا عن مكمل waxaan ogeyntiin oo ogaal ogeydin insha Allah taala baadigeed in garabka la isgelayo leeyahay midka kala leeyahay ogtii soo qaada insha Allah taala ninkaas odiga oo alxamdulillah aalin oo anaga soo qaada insha Allah إلهي سوقلي يعني إلهي كان جينا بإذن الله كريم إذا إلهي سوقلي الله سوقلي إن شاء الله ما شاء الله هل بقى وين اللي حافظه كري مركي لنا وإنا كومب وحافظها يا كومب قبل الله ويان صح marka saawaan u garanaynaa laakiin deegaan ahaan iyo dhaqan ahaan way waxaan u leenahay ogaadeen sidaas horta waxa u fahma tan labaad musharaxa dhowsakaahiye ilmihiisa ayaad reecabti u tihiin horta ogaanteed lahaada oo dhaba sidaas aan ku fahmin waxaad dhisaysaan ood kuuraha siinaysaan ood u uraysaan waa carruurtiinnii oo abti aad u tihiin waa la yaqaanaa abti inuu calool nugul yahay hawreerna ay calool nugul tahay kuura kwa kaahiye kuura kwa هذا الحصول هنا يا دكتور كاهية ما شاء الله صدق دكتور كاهية بسم الله يا وقدر أوينك أضياشا دلنيرة دمان وادمحسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب يا مهد علين وحيدين شيء يا waxaa lagu jiraa waqti siyaasadda ay kulushahay oo ay gabagaba tahay oy ka dhiman tahay iyo maalmo cayiman ilaa 20 camal ah maalmihiina way isa sii jarayaan waxaa waaye waxaa nagu soo foodlay maalinkii la codayn lahaa oo 9-ka bisha 8aad sanadkan oo ah maalinkii Kenya ay maaragtay calaamaysay in la codayn doono loo codayn doono madaxda waddanka oo dhan oo isbeddel uu ka dhici doono insha Allah taas ayaa sababtay inaan anigana isu soo sharaxo waxaan ka mid ahay ragga farada badan oo walaalahaya oo raadinaya kursigaas Wajir South aniga magacayga waa lagu dhawaaqay waxaa la yidhahaa Maxamed Kaahiye Buule waxaana ku magac dheerahay Dr. Kaahiye waxaan idiin sheegayaa reer Waqdheer
qofka xoogaa markuu codsanayo wax dadka codsanayana ay badan yihiin waa inuu sheego wuxuu aga duwan yahay laakiin haddii codsiga isku mid u wada noqdo dee qofkii wax laga codsanayo ma garanayo meeshuu ku aadayo marka sidaa awgeed waxaan rabaa waxyaar inaan faahfaahiyo waxaan u codsanayo kursigaas reewajiha South waa iska warhaynaa waana garanaynaa waxyaabaha ka jira qof kastana kii imaaday kii aan imaaninba waa laga warhayaa xaaladaha siday yihiin iyo siday wax u jiraan waana garanaysaan hoos ahaan annaga waxaan suqa qaybinaa jifo waana garanaysaan waxa ka jira gudahaas waxaan u malaynayaa hadda beesha aan dhex taaganahay weli wax biyo u soo galeen ma leh ilaa waqti xornimada la qaato sidoo kale ani ahaan beesha aan ka soo jeedo markii laga tago jifadaydana wax soo galay ma leh waa isku mid baan u malaynaa baana waxaana keenay xoogaa suxuleynta iyo maaragtay xoogaa waxyaabaha ka dhexeeya ogaadeenka degaa wajiha South hadda laakiin waxaa moodaa siyaasadda inay isbedelayso waxaan u malaynayaa inaad maqlayseen odayaashii inay lahaayeen ninkan waxaa wata ogaadeen siyaasaddii horta saa isu bedelayso waxaan rajaynaynaa in la gaaro waqti aan la fiirin doonin kan waa qabiil fulaan oo uu yar yahay ama kan waa saan ee kii la soo qaato loo wada codeyn doonan inta wajiha South degan waxaana moodaa hadda inay bilaabanayso 2013 sida ahayd way ka bedelnay 2017 hadda waxaa ka bedelan 2022 oo waxaad arkaysaan ilaa iyo 9 qof oo musharaxa inay hadda wajiha South ay ka taagan tahay waa cadadii ugu badneed oo weligood iska soo sharaxo wajiha South isbedelka waa dareemi kartaan sida loogu loolamayo MCA-ga qaarkood ay u socdaan deputy governor senator iyo waxyaabaha la mid ah isbahaysi iyo arrimo noocaasna hadda ay bilaabatay siday u socotana waxaa waaye sidaan sheegay inay noqon doonto aakhirka isbahaysi iyo yaa isku danahay inay tagi doonto baan rajaynaynaa taasayna ku socotaa waxaan aaminsanahay marka aniga naftayda inaan ahay geedkan iskama bixin geedkan markii hore dhulka waxaa la geli mirtaas ayuu ka dhashay oo geedkaas hadda la harsanayo noqday waxaan rajaynayaa aniga naftayda inaan noqdo tallaalka ugu horreeya oo arrintaasayta uu bilaabo waxyaabahaas oo laisku suxulaynayo in laga baxo oo maaragtay si ogaadeennimo ah iyo si wajiha Southnimo ah macnaha in laysu doorto oo laisku tixgeliyo waxaan rajaynayaa inaan ahay tallaalka ugu horreeya uu ka bilowday insha Allah sanadyada soo socdana la hergeli doono oo ay noqon doonto maaragtay jifo kasta inay soo sharaxdo insha Allah si wada jirna loogu codeeyo hadwaa la idmo taas ayaan horta aga duwanahay dadka kale taas ayaan maaragtay hiigsanayaa insha Allah haddaan soo galana insha Allah inaan maaragtay intaas ku duubnaana taas aan hergelin ayaan rajaynaynaa hadwaa la idmo waaba suuragal ay noqoto inay ogaadeen iyo reewajiha South oo dhan in meel inay fariistaan ay dhahaan maxaa noo dana ee ay noqonin jifo gooni ah intay meel fariisato hadhow qofkaana markuu soo galo uu noqdo MB-ga jifadaas taas ayaan ka hor imaadsanahay taas ayaana rabnaa wax inaan ka saxna hadwaa la idmo insha Allah waxaana rajaynaynaa inaan ku guulaysanayno annagoo la kaashanayna Allah subxaanahu wa tacaala markaan ka gudbo inaan ka codsanaa reeabaqdeer inay markaas intuu garab igu siiyaan arrintaas taas sidaan sheegay geedkaas waxaan hadsan karnaa haddii hadda aad garab idinka igu siisaan tulooyin badan iyo magaalooyin badan oo waaweyn oo soo marnayba inta badan waxaa isku afgaran inay garab ii noqdaan oo arrintaasayto aan ka shaqayno waxaana rajaynaynaa idinkana inaad ka mid noqotaan oo aad ku soo biirtaan doontii socotay oo gudbaysay webigaasaytow oo u gudbaysay dhinacii aan sheegnay oo ah in laga gudbo qabiil iyo arrimahaasaytow u socotay inaad soo kortaan insha Allah oo isla wada gudubno insha Allah intaasaytow markaa ka gudbo
intaasayto markaa ka gudbo waxaan codsanayaa maalinka cayiman oo hadda lagu hiigsanayo lagu maaragtay lagu wada xisaabtamayo oo 9-ka bisha 8aad inaad ii codaysaan taasi waxaan rabaa marka inaan waxyar macluumaad idin siiyo inta insha Allah aan rajaynayo inay ii codayso kolley ma malaynayo 100% in la ii wada codayn doono laakiin qayb inaan ka helayaan rajaynayaa waxaan rabaa marka macluumaad yar inaan idin siiyo macnaha markii waraaqda la siiyay MP-ga waraaqyo badan ay la siin doonaa waxaa la siin doonaa mid madaxweyne oo dhowr madaxweyne ay ku qoran yihiin waxaa la siin doonaa mid governor oo sidaa ognahay wajeer hadda 9 governor ay ku qoran yihiin waxaa la siin doonaa 2 women rep oo sidaan ognahay wajeer hadda ilaa 11 women rep ay ku qoran yihiin waxaa la siin doonaa MP oo maaragtay 9 magac ay ku qoran tahay iyo MCS oo inta ka taagneed oo faraha badneed ayagan ay ku qoran yihiin haddii marka aan u soo laabto tan MP-ga oo anay qusayso 9ka madax markaad fiirisaan insha Allah waxaad ku arki doontaan sawirkayga waxaad ku arki doontaan calaamadda xisbigayga oo calaamadda halkaas albaabkaas ay ku sawiran oo calaamaha iska hor imaaday iyo magacayga meeshaas horteedana waxaad ku arki doontaan meel box oo bannaan oo u baahan markaas inta calaamadda inaad saarto marka waxaan rajaynaynaa meeshaas inaad ay calaamaysaan insha Allah kuwa markaas ayta waa si gooni ugu calaamayn karin oo ayaga maaragtay aqoontaasba inay gaarayso waxaan rajaynayaa oo u baahan in la caawiyo in maaragtay siday iiga duwaan dadka kale waayo 9kaas ayta wiilashan waxaan rajaynaynaa inay noqdaan maxamed hebel sida aniga aan u ahay maxamed kaahiye buule inay dhahaan qofkii caawin lahaa ay ku dhahaan waxaan rabaa Dr. Kaahiye oo inay waxaan rabnaa maxamed waayo maxamedyadu way badan yihiin markaasna waxaa dhici kartaba maxamed kale inay maaragtay lagu calaameeyo sida awgeed magacayga goonida naga duwanahay kuwa kalena waa Dr. Kaahiye intaasi markaas ay ku taageerayaan oo u sheegaan ninka meeshaas ka joogo insha Allah oo meesha lagu codaynayo iga noqon doona ajib wallahi بغداد وحيدين رجينا إن شاء الله عاصمات وحيدين رجينا يا نبات قليو وحيدين رجينا يا روب إن شاء الله وحضر له وحانا رجينا هنا صلابتو انت يدعين دور الشرح والله يدوى مركل على القصة صلابتو إن كستو عند وجيه صوت هدوك تهين باحد هذا والله يقرب ميلا بدني وحياوي بدنينا صحون وريقون لكن وحاسكودا يا مرنا صومر إن شاء الله هوا يراتي وقت هذا السيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته